برنامج كانت هو برنامج سيستم maaragtay remote ku shaqeynaya haday hadal noqoto haday is noqoto inuu isfuro isbalaqo wax walbaba asoo ku shaqeynaya remote sida hadda arkaysidba wakaas waa isbalaqay markaas uu isbalaqay ka bacdi oo hadana sidoo kale remote ayuu ka hadlayaa magaciisu waa Cabdullaahi Maxamed Ibraahin oo dhaga dheer loo yaqaano ku dhawaad 300,000 oo arday oo ka qayb gashay imtixaanka dawladda sanadkan ayuu ka mid ahaa inkastoo hamigiisu uu dheer yahay haddana qalabkan oo alwaax iyo safiita ka kooban qodbadna jeedinaya ayuu xalay ku soo bandhigay xaflad isaga iyo saaxiibadiis ay ku qalin jabinayeen shan iyo 20 sano jirkan oo waxbarashadiisa ay u sii dheertahay xirfadda samaynta gawaarida 7 sano ayuu ku dhex jiray waana mid ka caawisay hindisaha qalabkan oo elektaroonik ku daaban waxaan ka shaqeeyaa waxaan ahay in farsamo yaqaan oo ka shaqeeya baabuurta waliba qaybta baabuurta ee kale qaybta aniga dabka ayaan ka shaqeeyaa dabiiqaan ayaan ahay dabiiqaanimadas waxaan baranayaa waqti badan oo laga joogo 7 sano 8 sano meelahaas deegaanka ayaan ku baranay sida hadda arkaysid systemkan halkan ku soo bandhigay oo arkaysid oo remote-ka ku shaqeynaya oo maaragtay ayaa kamid guuliga aan ka gaaray iyo waxyaalo badan oo soo koobi karaan nolosheeda ah sida hadda aniga waxbarashada aniga markaan bilaabayay xirfadan waan aqaan markaan waxbarashada bilaabayay inkastoo maankiisa ay ka guuxayso waxbarashada ilaa heer jaamacadeed inuu sii wato haddana hamigiisa ayaa ah inuu barto kulliyad ka kaabi karta xirfadan uu bartay ee dhinaca dabka la qalin jabinayay oo ayaan saaxiibada ayaan farxadda la qaybsanayay oo barnaamijkan u soo bandhigay haddaan u gudbo waxyaalaha kala kulantay iyo waxyaalaha maaragtay lagu guddoonsiiyay waxa kamid ahay sharaf sida arkeedaba gudoomiyaha degmada guddoonsiiyay oo maaragtay sharafta way jirtay sida arkaysaanba waa systemkan asoo isfuraya oo isxiraya sida hadda u jeedid oo kaasa waa isxiraya iskiis in remote-kaas ay ka hagayaan markaan uu xiran yahay dadku inta badan wax meeshan ku jira kan warqabaan waxaa jirta cod iyo cod badan ugu talagalay anigu oo maaragtay ku soo diyaarsaday aniga maadaama aan farsamo yaqaan oo qaybta aniga waxaan hadda meesha jooga sida arkeeda hadda alwaaxan iyo safiitadan iyo waxyaalahan asoo ka soo gatay laakiin wixii maskaxa iyo qalabkan maaragtay hadlaaya iyo qaabkan systemkan ana keensaday Cabdullaahi Maxamed Ibraahin dhaga dheere inkastoo dhalashadiisu ay la kulantay burburkii dalka haddana taasi caqabad kuma aysan noqonin inuu ka mir dhaliyo culumta dhinaca horumarinta farsamada uu gacanta ku hayo qalab kale jira sida sheegtaba oo maaragtay elektarooniga oo meeshan ku diyaarsan aniga maadaama aan baabuurta aan ka shaqeeyo qalab badan oo baabuurta iska leedahay meeshan ku jira oo maaragtay haday hadal noqotay baabuur aan soo diyaarsan systemka aan lagu talagalay meeshan laakiin anigu aan maadaama nin farsamo yaqaan baabuurta ka shaqeeyaan aan inta ku soo diyaarsaday wax hadlaaya haday noqoto wax dhan waxay ku hadlayaan waa elektaroonig eega dhan haday furooda noqoto haday shidnaanshaha sida arkaysid gudaysa markii la furo wuu shidan yahay marka systemkaas isaga dhan elektaroonig ka samaysan yahay injineerkayga xagga farsamada iyo dabka oo liiraad Axmed Cumar Saad ku amaga dhan Axmed Dable oo farsamada geerishka iyo dabka intaas sano macallinkayga hadii si kaas loo yiraahdo macallinkayga farsamada ayaan ugu mahad celinayaa meeshan